haddii heshiis lagu gaadhi waayo caleemasaarkayga 2 toddobaad gudahood waxaa bariga dhexe ka furmi doona albaabada jaxiima. arrinkaasna cidna uma roona. waxa ugu cagajugleeyay bariga dhexe iyo Gaza cadaab daran. allahna subxaanahu wa tacaala jawaab degdega ayuu ka siiyey arrinkaas. albaabadii jaxiima oo madaxweynaha dalka Mareykanku ku cagajugleynayay ayaaba dalkiisii ka dilaacay. subxaanallah. halkan haweenaysa ood arkaysaan waa dalka Mareykanka. maalmo kooban ayay sidaa ku noqotay. dalkii sheeganayay awoodda dunida kuna faani jiray in aan awoodiisa cidna u babac dhigi karin ayaa awoodi kari waayey in uu baktiyo dabka ka dilaacay waddankiisa. awood walba oo isku dayay waa uu baktiin kari waayey dabkaas. haddaba arrinkaas ka dhacay dalka Mareykanka waxaan oran karnaa waa mucjiso rabbaani ah. markii uu dhibaateeyey dalka Falastiin kuna farxayay dhibaatada iyo xasuuqa loo geysanayo dadka reer Falastiin, sanad iyo dheeraadna la burburinayay dalkoogii, kana rajo beeleen in ay maalin ka heli doonaan walaaladooda islaamka garab, ayaa ka waayay garabkii. kadibna gacmaha ayay kor u taageen waxaanay ku wada dhawaaqeen yaa rab. allah subxaanahu wa tacaala waa uga jawaabay ducadoodii oo maanta waxaa hawanaya meel ka mid ah waddankii garabka siinayay yuhuudda. ogsoonow, ducada madluumka iyo ilaahay xijaab uma dhexeeyo. si kasta ay kaaga soo raagto, allah subxaanahu wa tacaala waa kii kaaga jawaaba. waxyaabaha ugu mucjisada badan leh ee lagu arkay dhacdada ka dhacday dalka Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah meelaha qaarkood geeduhu may guban balse laakiin guryihii ayaa hawaday. mucjisada kale ee dabkaasi lagu arkay ayaa waxaa ka mid ah qasabadaha dabdamiska ee waddooyinka ku yaala ayaa shaqayn waayey. dhacdada kale ee warbaahinta caalamka qabsatay ayaa waxaa ka mid ah ninkan aktarka Bollywoodka ka tirsan ayaa mar uu Twitterkiisa qoraal soo dhigay ku jeesjeesay dalka Falastiin yilina hala baabiyo. maalmo kooban kadib ayaa allah subxaanahu wa tacaala isna gurigiisii baabiyey. ninkii ooyin ayuu qabsaday isagoo ka murugaysan dhibaatadaas soo gaadhay. ogsoonow, awoodda ilaahay cidnama baajin karto, cidna uma babac dhigi karto. allah subxaanahu wa tacaala isaga ah ka ugu awoodda badan.